xaflad lagu soo gunaanadayay tartankii wadajirka garoonka Guriyasamo degmada Maxamuud Haybe ayaa lagu qabtay hotel Gacanle ee magaalada Hargeysa. Koobkii wadajirka ayaa waxaa ku guuleystay kooxda Sky Blue iyadoo goolkulaagayaal 8 iyo 7 uga soo badisay kooxda Horseed garoonka Guriyasamo. Waxaana xafladda gunaanadka ka soo qayb galay agaasimaha waaxda ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Somaliland Cabdirashiid Caydiid Yaasiin, ogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta Somaliland Cabdirasaaq Maxamuud Cusmaan, madaxa farsamada iyo tababarada ee xiriirka kubadda cagta Mahdi Jawaase, wakiilka gobolka Muruudsheekh ee xiriirka kubadda cagta Cabdilaahi Shiine, musharax xildhibaan golaha baarlamaanka gobolka Muruudsheekh waa Maxamed Khadar, kooxda koobka qaaday kuwa kaalinta labaad galay iyo marti sharaf kale oo lagu marti qaaday madashan. Ugu horeyn hadaladii laga jeediyay madasha xafladan ayaa waxa u dhacday sida tan. dhibaatada maanta inaga haysataa ciyaartooygeena kubadda halka uu ka dhiibaya wuu garanayaa kubadda garoonka markuu ku jiro sidoo uu ciyaarayo top way balse waxa ka dhiman kubaddu waxay lahayd habkay lahayd war markaad kubadda shuruucdeeda iyo sharcigeeda garanayso garsooraha isku ma dhacaysaanba caalamka waad aragtay garsoorada ciyaartooy ismaba qabsadaan waxaas ciyaartooygu kubadda marka la dhigo niyadiisa uu garanayaa waxay tahay. sidoo kale waxa jira inaan abuurno jawi lagu tartamo oo runtii hadii la tartamo waxa soo baxaya dad talent leh xirfad leh magaranaysa marka inaan abuurno jawi lagu tartamo oo magaranaysa inaan kubadda la ciyaaro oo magaranaysa qof kasta oo kartidiisa oo halkaa ku soo bandhigo sidoo kale waxyaabaha muhiimka ah waxa kamid ah inaan anagu ka urur ahaan dhiirigelino oo runtii markaan hawshan bilaaweynay waxyaabahan sameynay waxa kamid ah inaan dadkii dhiirigelino dadka ka soo qayb galay inaan dhiirigelino oo runtii niraano war qof kastoo kartidaada halkii ku geyso ayaad halkaa la tegaysaa. maanta sida halkan idinka muuqata waxa ay kooxda hanqaad ee dhalinyarada garoonka gacanta ku haysa ay maraysaa inay bixiso abaalmarino ay runtii adag tahay in dhalinyaro isxilqaamaysa ay bixiso xaflad ahaan ama abaalmarin ahaan taasi oo ah in wiilkii ku guuleystay gool dhalinta ama ugu iskooriska badnaa caawa hortiina lagu guddoonsiin doono telefoonkii xafladii furitaanka tartankii hore laga yidhi oo noqonaysa markii koowaad ee abaalmarin heerkaas la gaadho oo runtii isagana noqonaysa taariikh iyo magac. inaad dhaqanka islaamka aad ilaalisaan inaad ku dadaashaan shayga kaliya ee wallaahi wax walba idinku suurtagelaya haddaad shaqo doontaan iyo haddaad guur doontaan iyo haddaad waxbarasho doontaan iyo haddaad wax walba niyadiina khayr ku jira aad doontaan oo rabbi kabca haddaad istiraadaan doona waa shayga cibaadada la yidhaahdo. waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinayaa dalada hanaqaad oo mar walba hiil la garab taagan dhalinyarada caasimadda Hargeysa oo mar walba niyow hiil iyo hawlba la garab taagan waxaan leeyahay ilaahay idinka abaalmariyo hiilkaad la garab taagantiin dhalinyarada soo kacaysa. run ahaantii kubadda marka aan anagu ka tirsanay inaan kooxaha ciyaari jirnay ka mid ahay waxa ugu weyn aanu ka faa'iidnay waxay ahayd sidaan horeyba meelo badan uga sheegay waxa weeyaan isdhexgal weeyaan kubaddu. waxaan leeyahay taariikhdu way isbari doontaa garoonka eegan Guriyasamo hadhow waxa lagu faani doonaa anagu 5 champion baan haysanaa yaa leeyahay iyagana oo halala socdo wareegyada hal la kordhiyo oo ciyaaraha lagaga mashquulso balwadaha kale ee naafiyay wadankeena oo arkayso. waqtigii nabiga waxa dhacay sallallahu alayhi wasallam saxaabi dhalinyara baa nabiga u yimi wuxuu yaa rasuulallah waxaan hay saxaabi dhalinyara shahwada igu badan isma xakameyn karaayo waxaan doonayaa in aniga hablaha la igu fasaxo askaxoodaan gure. saxaabiga waa saxaabi dhalinyara xadiiskana Bukhari iyo Muslim baa warinaya nabigu garabku taabtay saxaabigaas sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku yiri ma jeceshahay hooyada in laga sinaysto uu yaabay wuxuu maya ma jeceshahay habaryarta iyo eedada iyo walaasha iyo naadirta wuxuu maya wuxuu nabigu ugu hal celiyay wakadalika naas dadkuna waa sidaas oo kale oo inta uu noo joogo waa xiriirka kubadda cagta hooyadii waa wasaaradda maanta waxaan helnay hooyo wanaagsan iyo waalid qiimo badan annaguna intaan xilka hayno waxaan doonaynaa inaynu ka faa'iidaysano oo xubnaha noo firfircoon aan hawsha ku dhiirano in aad heli doontaan chance ah inaad ku ciyaartaan garoon doog leh oo ka caalamka aad ka daawataan shaashadaha mid la mid inaad ku ciyaartaan inaad heshaan
in life laydin daawado maanta cidda aan jaaniska helin 2 sano iyo sanad kadib agtoodu marka ay wanaagsanaato in ay ku ciyaari doonaan barnaamijyada waqtiga gaaban awgeed waxaan kaga baxayaa annaga noqon maayo kaabka ku dambeeyay ka qayb galno insha Allah kaab kale lagu dhigo Guriyasamo Stadium diyaar baan ka qayb galnaa oo kayman gobolka Awdal aad u mahadsantiin waa xaflad gooldhaliyihii tartanka lagu guddoonsiiyey mobile loogu talagalay ciyaartooyga qaada gooldhalinta waana Mubaarak Xasan Cabdi xafladda ayaa waxaa la bixiyey direys kooxeed oo dhameystiran lana guddoonsiiyey kooxda shacabka ee ka socotay magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ahaydna kooxda kaliya ee marti ku ahayd guud ahaan kooxihii ka qayb galay tartankii wadajirka ee garoonka Guriyasamo degmada Maxamuud Haybe magaalada Hargeysa waxaana kooxda shacabka u guddoomay direys kabtankooda waa Hanad sidoo kalena abaalmarino iyo shahaado sharafyo maamuus ciyaartooy iyo mas'uuliyiin ahaa ayaa madasha lagu bixiyay iyadoo jawi qurux badan ay ku soo idlaatay xafladani Axmed Taye Qaran wararka Malcab magaalada Hargeysa